kulanti wanaagsan kuna soo dhawaada xarunta telefishinka BBC da London wararka caalamka waxa ugu waaweyn madaxweyne Trump ayaa socdaalkiisii ugu horeeyay ku tagay Saudi Arabia waxa uu ka hadli doonaa kulan muhiim ah oo ay isugu imanayaan hogaamiyaasha dunida muslimka tirada carruurta lagu daryeelayo xarumaha nafaqa darrada ee magaalooyinka Baydhabo iyo Kismaayo ayaa laabantay barnaamijka tiknoolajiyada ee toddobaadkan ee Clickna waxaanu idinku haynaa telefoon marka aad tuujiso sawir ka qaadaya Donald Trump ayaa u anbabaxaya caawa Saudi Arabia safarkiisii ugu horeeyay isagoo madaxweynaha waxa uu hadal ka jeedin doonaa kulan weyn oo ay isugu imanayaan madaxda dunida muslimka ah magaalada caasimadda ee Riyadh waa tallaabo lagu xoojinayo xiriirka Sacuudiga oo ka mid ah taageerayaashiisa ugu waaweyn wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudiga ayaa sheegay in booqashadu ay dirayso fariin culus oo ku saabsan xiriirka Carabta iyo reer galbeedka Farxaan Maxamed Jimcaale ayaa ka waramaya waxay u muuqataa in Donald Trump uu faraha la galay muran qoto dheer oo ku saabsan sida la sheegay xiriirka uu la yeeshay Ruushka laakiin Sacuudiga ayaa ku faraxsan in madaxweynaha Mareykanka uu doortay in booqashadiisii ugu horeysay ee dibadda uu ku tago Riyadh wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi ayaa u sheegay BBC-da in ay muhiim u tahay booqashadani waxay bedeli doontaa hadalhaynta taagan iyo wadahadalka u dhexeeya dunida muslimka iyo guud ahaan reer galbeedka gaar ahaan Mareykanka waxay go'doomin doontaa xag jirka Iiraan ha ahaato ama ISIS iyo Al-Qaacida yaa yidhi reer galbeedku waa cadowgayaga waxay sidoo kale xakamayn doontaa dadka reer galbeedka ee yidhaa islaamku waa cadowgayaga run ahaantii waa booqasho taariikhi ah Mr. Trump kuma hakan doono umana tagin kaliya Riyadh si uu la kulmo hogaamiyaasha boqortooyada Sacuudiga laakiin waxa uu ku soo dhaweyn doonaa madax kale oo imanaysa madaxweynaha ayaa sidoo kale la kulmaya dhammaan hogaamiyaasha khaliijka Sacuudigana waxa uu soo casuumay dhammaan wadamada Carabta iyo kuwa muslimka martigelinta boqorada iyo madaxweynayaasha ka socda dalalka islaamka iyo ninka hogaamiya dalka ugu awooda badan caalamka ayaa Sacuudigu waxa uu rajaynayaa in uu ku muujiyo kaalinta muhiimka ah ee uu ku leeyahay gobolka ilaa bilowgii madaxtinimada Trump Sacuudigu waxa uu ka mid ahaa taageerayaashiisa ugu waaweyn wax weyn kama uusan soo qaadin murankii ka dhashay qaraarkii dadka ka yimaada dalalka islaamka lagaga mamnuucayay Mareykanka waxaana uu Sacuudigu sheegay inuu rumaysan yahay in Trump yahay madaxweynaha ay la shaqayn karaan waxay qabaan inay isku aragti ka yihiin dhanka militariga siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo sidoo kale dagaalka ka dhanka argagixisada iyo waxa Sacuudigu u arko doorka Iiraan ku leedahay khalkhalgelinta bariga dhexe diidmada Trump ee ah in la qaado cunaqabataynta saaran Iiraan oo ah aragti uu kaga duwan yahay tii Barack Obama ee ahayd in is-afgarad lala yeesho Tehran ayaa sidoo kale Sacuudigu soo dhaweeyay waxaase jira walaac ah in muranka ka taagan Washington uu harayn doono booqashadan laakiin Trump booqashadiisa ayaa loo arkaa inay tahay bilow wanaagsan oo soo afjari doonta xiriirka madmadowga galay markii Obama madaxweynaha ahaa faahfaahin dheeraada oo ku saabsan booqashada madaxweyne Trump ee Sacuudiga iyo warar kaleba waxaad ka heli kartaa bogga BBC Somali adigoo ka galaya mobilkaaga iyadoo xilliga roobabka gugu ay Soomaaliya ka curteen ayaa hay'adda lanqeyrta cas ee caalamiga waxay shaaca ka qaaday in carruurta lagu daryeelayo xarumaha gargaarku inay labalaabmeen magaalooyinka Kismaayo iyo Baydhabo abaarihii daba dheeraaday awgood kuwaasi oo ay ka dhasheen cunno yaraan carruurta aad u saameysay warbixintan oo inoo diyaariyay Qaalib Xasan Baaruud waxa ku jira sawirro carruur xaaladoodu liidato muddo badan Soomaaliya waxa ka jiray abaar ba'an oo daba dheer abaarta waxa ku caydhoobay Soomaali badan oo isugu jirta xoolo dhaqato iyo beeraley hadda qaybo badan oo dalka ka tirsan waxa qaboojiyay roobabkii guga laakiin meelaha qaar wali waxa ka taagan masiibooyinkii ka dhashay abaaraha tirada carruurta u liidata nafaqa darrada ee lagu dabiibayo xarumaha hay'adaha gargaarka ayaa haatan laabantay waxa aan ku soo aragnay xarumaha nafaqaynta Kismaayo iyo Baydhabo ee aan taageerno ayaa ah in tirada carruurta ee labada xarun soo gaartay ku dhow yihiin labalaab taasi oo sida cad ka timid cunno la'aanta hadda ka jirta Soomaaliya qaramada midoobay iyo hay'adaha gargaarka ayaa weli ka walwalsan nafaqa darrada xun ee ka taagan Soomaaliya hay'adaha ayaa hadda ku mashquul ah sidii loo daryeeli lahaa carruurta dhibban ee nafaqa darradu soo ridatay
cunug markii uu soo galo aad u liito safiir uu yahay ama marasmas ama kuwaash kor uu yahay haddana ilaa ay hista uu ka baxay sawirkiisa uu markii uu maamada ay markay imaanayso ama aabaha uu keeno ama hooyada ay keento ay leeyihiin cunugan waaba sii dhiman rabaay dhimasho ahaan leh inta u keenay aan ay leeyihiin marka dambena ayagoo qoslay ay faraxsan yihiin inta ay ka baxaan waa mid ay ugu farax badan tahay aniga naftirkeyga aan markaas aad u dareemay farxad inkastoo dhowaan roobab da'een haddana dhulku muddo dheer ayuu oomana ahaa cimiladuna way isbeddeshay sidaa daraaddeed ka soo kabashada abaartan ayaa muddo qaadanaysa dadka ay masiibadan xumi saamaysay siiba carruurta ayaa hadda u baahan gurmad degdeg ah bal iminkan aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka maanta ka qaybgalka codbixinta doorashada Iiraan ayaa la soo sheegayaa inay aad u sarreysay dawladda ayaa sii kordhisay waqtiga codaynta TV-ga qaranka ee Iiraan ayaa ku waramaya in dad badan ay ku xoomeen meelaha codbixinta madaxweynaha qoyar socodka Xasan Ruuxaani ayaa la tartamaya wadaadka mayalka adag Ibraahim Ra'iisi kaasi oo ku dhowdhow hogaamiyaha ruuxiga Ayatullaahi Khamenei xeer ilaalinta Sweden ayaa sheegay inay laaleen baaritaan dembi kobsi ah oo lagu soo eedeeyay asaasihii hay'adda WikiLeaks ee siraha faafisa Julian Assange safaaradda Ecuador ee London ayuu ku xanibnaa tan iyo 2012 waxaana uu aad uga baqayay in loo gudbiyo Mareykanka laakiin weli waa la qaban karaa hadduu safaaradda ka baxo eedeymahaasi waa uu dafiri jiray lagu eedeynayo Assange madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa booqanaya dalka Mali ee Afrikada Galbeed madaxweynaha Mali President Ibrahim Boubacar Keita ayay kulan wada qaateen iyagoo ka wada hadlay arrimaha la dagaalanka kooxaha argagixisada ee Islaamiyiinta sheegta madaxweyne Macron ayaa sheegay inuu wadi doono dagaalka argagixisada lagula jiro Mareykanka ayaa cabasho u gudbiyay Shiinaha kadib markii diyaarado Shiinihii ay ku soo xadgudbeen diyaaradaha ciidamada Mareykanka oo marayay biyaha caalamiga ah ee Shiinaha u dhow afayeen u hadlay ciidamada cirka ee Mareykanka ayaa sheegay inay arrintani kala hadleen Shiinaha iyaga oo u sii mariyay dariiqyo diblomaasiyadeed iyo kuwa militariba tirada carruurta muhaajiriinta ah ee kaligood dunida u socdaala ayaa meel sare gaadhay qaramada midoobay ayaa ka digaysa in kuwa badan oo ka mid ihi ay khatar ugu jiraan inay dhiigmiirtaan dadka wax tahriibiya iyagoo carruurtaasi isku dayaya inay ka baxsadaan dagaalka iyo fakhriga ku habsaday dalalkoodii Suhayba Maxamed Badqas ayaa inoo haysa waxa qasab ku ahayd inay ka soo gudbaan 5 dal saddexdan wiil ee agoomaha ah haatan waxa lagu xanaanaynayaa xarun ku taal Athens Xamiid waa 15 sano jir walaalkii Cali waa 13 sano jir Murtaazna waa 12 sano jir waalidkood waxa lagu dilay weerar ay geysteen Taliban safar ay muddo bil ah ku soo jireen kadib wiilashan waxay halkan yimaadeen bishii Maarso safarkooda barkii way lugeynayeen oo waxa waday magafayaal ama kuwa dadka tahriibiya may jirin sabab aan Afghanistan u sii joogaa mar haddii hooyaday iyo aabahay dhinteen dagaal iyo qarax baa ka socday dhibta ugu weyn waxay ahayd sida looga gudbayo xadka u dhaxeeya Pakistan iyo Iran 10 saacadood baanu lugeynay walaalahayna way daaleen oo way socon kari waayeen midkood baan degta ku qaaday socdaal khatar badan buu ahaa nolosha walaalahayna waanu baqay imika rajo kaliya baan qabaa taasoo ah in aniga iyo walaalahay aanu meel isugu tagno anagoo bad qabno faraxsan maadaama ay muhaajiriin badan ku xaniban yihiin Greega waxaan jirin goobo wanaagsan oo lagu hayo carruurta aan waalidkood la socon waxaa jira warar sheegaya in carruur aan qaangaar ahayn lagu qasbo inay ku shaqeeyaan lacag la'aan iyo kuwa jirkooda ka ganacsada si ay lacag u helaan 10kii carruur ah ee Greega yimi midkood ayaa soo gaaray halkan iyadoo cidina aysan wadin 22 carruur ah ayaa hadda baranaya ciyaartan maamulaha xaruntan ayaa laftarkiisa asagoo wiil yar ah ka soo cararay Iiraan haatanna waa dhakhtar ku takhasusay cudurrada maskaxda carruurtan dhammaantood waxaa haya xanuun maskaxeed hurdo la'aan dagaal isjirdilid mana rabaan inay cunto cunaan ama dad la joogaan qaar ka mid ah waxaa baqdin ku haysa wixii ay soo mareen noloshooda qaramada midoobay ayaa sheegaysa in tiradii ugu badnayd ee carruur ahi ay hadda adduunka ku kala daadsan yihiin ayagoon waalidkood la socon waxa ayna ka soo cararayaan colaadda iyo rajo la'aanta ka jirta waddamadooda waa in dadaal dheeraad ah lala yimaada ayay tiri qaramada midoobay si loo ilaaliyo carruurtaasi
bal iminkana wararka ugu waaweyn ciyaaraha caawa aynu eegno hardanka horyaalka ingiriisku wuu dhammaaday bay u eg tahay laakiin tartanka kabaha dahabka ah ciyaartooyga ugu gool dhaliska badan wuu socdaa ciyaartooyga kooxda Tottenham Harry Kane ayaa 4 gool u dhaliyay kooxdiisa oo Leicester ku garaacday 6-1 xalay toole ciyaartii la ciyaaray natiijadan ayaa waxay ka dhigaysaa inuu isagu noqdo ninkay u badan tahay in la guddoonsiiyo kabaha dahabka ah weeraryahanka Son Heung-min ayaa 2 gool ee kale u dhaliyay Tottenham axaduna waa ciyaarihii ugu dambeeyay ee horyaalku ay yeelanayaan 4 kooxood ee lagu soo afjarayo tababaraha Arsenal Arsene Wenger ayaa sheegay in mustaqbalkiisa inuu joogayo iyo in kale Arsenal lagu go'aamin doono kulanka dhacaya 27 May oo ah maalinta FA Cup-ka finalkiisa la ciyaari doono 67 jirkan Faransiiska ah ayaa kooxda Arsenal tababaro u ahaa laga soo bilaabo 1996 kontraadkiisuna wuxuu dhamaanaya xagaaga soo socda taageerayaasha Arsenal qaar kamida ayaa raba inuu ka fadhiisto shaqada dhanka kalena tababaraha Liverpool Jurgen Klopp ayaa sheegay in kooxdiisu ay go'aansatay cid ay rabto inay soo iibsato xilli ciyaareedka soo socda kooxdani ayaa ku jirta kaalinta afraad ee horyaalka Ingiriiska isagoo quudareynaya inay ka qayb galaan tartanka horyaalada Yurub waxaana ugu dambeysay tartankaasi 2014 iyo 15 ciyaarihii la ciyaarayay oo ay ka galeen kaalinta labaad bal iminkana xagga tiknoolajiyada haddii aynu eegno dhakhaatiirta qalliinka ka shaqeysa ayaa mar dhow waxay adeegsan doonaan qalab casri ah oo qalliinka loo adeegsanayo oo la yiraahdo 3D warbixinta tiknoolajiyada ee Click ee toddobaadkan waxa inoo haya Axmed Xaaji Xasan shirkadda telefoonada ee HTC ayaa daaha ka rogtay waxa ay ugu yeertay mobilka 2G oo leh dhinacyo la riixi karo waxaana uu qaadayaa sawir marka la tuujiyo mobilkaasi ayaa Aasiya lagu iibin doonaa isbuucan kadib caalamka intiisa kale ayaa loo iibgeyn doonaa dhammaadka sanadkan HTC waxa ay leedahay iska sheeko inaysan ahayn arrintan ayna cadaadintan ka dabiicisan tahay taabashada caadiga ee mobilka Google waxa ay shirkeeda sanadlaha ee isbuucan ku soo bandhigtay qaar ka mid ah barnaamijyadeeda caaqilka macmalka ah oo uu ka mid yahay Google Lens kaas oo ah barnaamij aqoonsanaya wixii ka soo hormuuqdo kamerada waxa sidoo kale ku ishaari kartaa qadka internetka si toos ah ayuuna u soo qabsanaya adigoo aan raadin ama password aan gelin dhaqaatiirta qalliinka waxay mar dhow heli doonaan shay 3D ah oo qalliinka ay u adeegsadaan EcoPixel waa hannaanka daaweynta sawirka kaas oo dhaqaatiirta u sahlaya in jirka bukaanka iyo xubnihiisa ay ka howlgalaan ayagoo 3D adeegsanaya aasaasiyaashu waxay sheegayaan inaysan xaqiijin karin natiijo wanaagsan laakiin mid ka mid ah baarayaasha wuxuu BBC-da u sheegay in shaqada ay u fududaanayso xusuuso markii tiknoolajiyadda ay maraysa codka MP3 player hadda waxay noqon kartaa xilli la macsalaameeyo kadib markii shirkadda samaysay qaabka MP3 ee Fraunhofer ay sheegtay in codka noocaas ah tayo ahaan uu ka hooseeyo heerka hadda ee AAC codka qaabka MP3-ga ah waxaa lagu sameeyey boqolaal shay sida iPod, Sony iyo Samsung Galaxy ugu dambeyntii caawana bal aynu eegno muuqaaladan cajiibka ah kuma habboona dadka qalbiga jilicsan dadka iska soo tuura meelaha dhaadheer ayaa ku tababaranaya buuraha Mexico iyagoo isu diyaarinaya tartanka lagu qabanayo Ireland bisha dambe ee iska soo tuurayaasha caalamiga ah Jonathan Prades oo Mexicana iyo David Coltoni oo Mareykanah ayaa 24 mitir iska soo shalwiyay meel ku taala Cabo San Lucas ee gobolka Baja California haddii aan idin xusuusiyo qodobka wararka caawa ugu weynaa waa madaxweyne Trump oo u socdaalaya goordhow Saudi Arabia oo kula kulmi doona madaxda dawladaha islaamka qaarkood waa booqashadiisii ugu horeysay tan iyo markii xilka madaxweynenimada loo dhaariyay bishii January wararkan iyo kuwa ugu dambeeyayba waxaad kala socon kartaa oo aad ka helaysaa bogga bbcsomali.com intaas ayaanu barnaamijkayga caawa ku soo gabagabeynaynaa waxaanu idin leenahay waa mahadsantiin intaynu isniinta dib u kulmayno nabadgelyo